السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu eegi doonaa casharkan expressionska. luqadda marka deganayso adigoon moogtahay system dheer iyo grammarka soo marin ayaa loo baahan yahay inaad daily usage-ka iyo ereyada maalin walba soo noqnoqda aad isticmaasho oo aad taqaan. marka maanta qaar baynu isla eegi doonaa wixii aynu ka tagnana dib baynu insha Allah ka raacin doonaa maalimaha kale. waan bilaabayaa marka have a seat waa soo fadhiiso. way soo noqnoqotaa dee mar walba ereyada soo noqnoqdaan marka soo qaadan doona insha Allah. Maybe somebody came to you xaqeeba qof baa ku yimi have a seat uu taagan yahay qofkaas soo taagan doonta have a seat soo fadhiiso. talabaad what's going on here halkan maxaa ka socda meel baa soo gaadhay buuqa ama waxaan fahansanay ka socdaan. What's going on here waa halkan maxaa ka dhacaya. How long have you been here intii halkan joogtay waxa weeye kuwa inoo asaasiga waxaan noo sii socda markaa qaybteeni labaad. I have said nothing to you waxba kuma odhan. Maybe somebody qof ayaa kolka yaaba ku odhanaya what have you said maxaa tiri ama come again oo kuma maqlin oo kale igu soo celi waxaa tiri. So I have said nothing to you waxba kuma odhan. waaye ta kalena waxay noqon doontaa have you ever been to Hargeysa weligaa Hargeysa ma tagtay. markaasna waxaad u baahan tahay meelo badan inaad doonto ka bedelato. qofka jawaabta wuxuu ku jawaabayaa yes I have been to there halkaa waan joogay iyo I have never been to Hargeysa weligaa Hargeysa ma tagin. sidoo kale waxaad oran kartaa I have been Hargeysa for only 3 months 3 bilood oo qoran joogay waqtina muddo wada raacin kartaa. have you ever been to United States weligaa ma tagtay USA. No I have never been to there but I hope one day it's happen laakiin mar uun rajaynaya inay dhacdo weligeena ma tagin. halkaan ku dhaafo taa ta ka xigtay waa I don't want to stay here I want to go home. I don't wanna to stay here I want to go home. ma doonaya halkan inaan joogo waxaan doonayaa inaan guriga aado. waxaad oranaysaa I don't want to stay here halkan ma doonaya inaan joogo I want to go home waxaan doonayaa inaan guriga aado. ma doonaya inaan halkan joogo gurigan doonaya inaan aado. qofkii kugu jawaabi kula hadli karayay dee markaa waxaan oran karayaa please stay here for a while halkan in xoogaa yara joog. aniga waa kuwa aynu dib soo qaadan doono marka ka hadli doono kuwaas. tan u dambaysa waxa weeye we going to get out of here waa inaynu halkan iskaga baxnaa. we gonna get out of here we gonna get out of here waa qaabka iyagu dhawaaqaan going to the gana waa laga dhigaa we gonna get out of here waa inaan halkan iskaga baxnaa. adigu waxaan oran kartaa laakiin we going to get out of here waa inaan halkan iskaga baxnaa meeshaan iskaga tagnaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. casharo kaloo grammarka hadday noqoto auxiliary verb iyo prepositiono waxaas oo dhan insha Allah waa soo wada. waxa weeye anigoo teacher Abin aha waxa weeye insha Allah share like iyo subscribe xagiina. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. casharkeena intaas ayuu nagu eegyahay.